السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابضياش ku xiran channelkayga tiktok ku soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan biidmillaah kariim door baraale ka noqdo waxaan ka hadlayaa caabuqa ku dhaca ragga iyo dumarka oo loo yaqaan chlamydia intaynu gudagalin muuqaalkeena maanta subscribe button la garay una share qaar ka mid ah asxaabtaada hadaynu gudagalno muuqaalkeena maanta waa maxay chlamydia ama caabuqa ku dhaca xubnaha taranka ragga iyo dumarka. caabuqan loo yaqaan chlamydia waa cudur iska caadi ah oo lagu kala qaado galmada oo ay keenaan bakteeriyo waxa uu saameeyaa ragga iyo dumarka wuxuuna ku fidaa cudurkani xilliga galmada lagu jiro. dadka qaba caabuqani inta badan ma lahan calaamado soo muuqda marxaladaha hore si kastaba ha ahaatee caabuqani wuxuu sababi karaa dhibaatooyin caafimaad xumo ah in ay ka hortagto haweeneyda in ay uur qaadi karin. haddaba maxaa sababa in ay imaado bakteeriya loo yaqaan chlamydia? waxaa sababa galmada sharci darrada ah. galmada afka ee aan la ilaalin ayaa ah siyaabaha ugu badan ee lagu kala qaado caabuqani. hooyada uurka leh waxay si sahlan ugu gudbin kartaa caruurteeda ama ilmaha ay ku sido caloosha. cudurkani ama caabuqan loo yaqaan chlamydia rag iyo dumarba way wada qaadi karaan, laakiin dumarka ayaa aad ugu badan. tirkoob la sameeyay ayaa sheegaya dumarka ay u nugul yihiin caabuqan loo yaqaan chlamydia. heerka caabuqa waa kuwa ugu sareeya dumarka da'dooda ay yihiin 25 sano iyo kuwa ka yar ay u nugul yihiin in ay ku dhacaan caabuqa loo yaqaan chlamydia. haddaba maxaa ka mid ah waxyaabaha aan lagu kala qaadin cudurkan ama caabuqa loo yaqaan chlamydia? waxaa ka mid ah barkada oo la isla qubeysto laguma kala qaado. fadhiisashada ama isla wadaagida kursiyada ama meelaha lagu fariisto laguma kala qaado. hindhisada qunfaca iyo laguma kala qaado. haddaba maxay tahay calaamadaha lagu garto chlamydia in aad qabto cudurkan loo yaqaan chlamydia? inkastoo dadka caabuqan qaba intooda badan aysan astaan muujinin, haddana waxaa laga yaabaa in ay bilaabato in ay soo muuqdaan 5 ilaa 10 maalmood kadib marka ay ku dhacaan ama qofku uu ku dhaco cudurkan loo yaqaan chlamydia. waxaa ka mid ah astaamihiisa. dumarka qaba chlamydia astaamaha lagu garto waxaa ka mid ah calool xanuun ama calool majiir ama mindhiciro xanuun, dheecaan ka soo baxa xubnaha taranka. dumarka qaba cudurka loo yaqaan chlamydia waxaa lagu garan karaa calool xanuun, dheecaan ka soo baxa xubnaha taranka ee haweeneyda oo ur ama qarmuun saa'id ah sita. dhiig bax xilliga caadada ay socoto. 4 qandho hooseysa aan laga dareemaynin ama qofku iska dareemaynin. 5 galmada in ay ku dareento xanuun aysan dareemin wax raaxo ah. 6 dhiig bax galmo kadib markay dhacdo galmo kadib waxay isku arkaysaa dhiig bax. 7 kaadida oo gubta. 8 in ay bararto ama barar ay yeelato xubnaha taranka fiijanaha ama anaska dhinacyadiisa in ay ka dareento bar. haddaba maxay tahay ragga calaamadaha lagu arki karo ee qaba caabuqan loo yaqaan chlamydia? xanuun iyo gubasho dhagarka ragga. 2 dheecaan ka imaada xubinta taranka ama ay isku bedesho malax dheecaan sida caanaha oo kala ah oo ur badan. 3 in ay xiniinta ay bararto jilicsanaan la soo wajahdo xubinta taranka. 4 haddii caabuqani uu saameeyo malabadka ragga iyo dumarka waxay isku arki karaan cuncun siyaado ah. daaweynta caabuqa chlamydia waa iska fudud tahay in la daaweeyo waayo waxaa sababa waa bakteeriya dabiici ah waxaana lagu daaweyn karaa antibiotic ayaa lagu daaweyn karaa. fadlan haddii aad isku aragto astaamaha aan soo xusnay fadlan la xiriir dhakhtarkaaga kugu dhow ama dhakhtarka qabiilsan haweenka ama ragga. ku dadaal nadaafadda xubnaha taranka sidoo kalena waa in aad nadiifisaa inta aadan seexanin xubnahaaga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. fadlan subscribe inoo la gareey siina share gareeya.